السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، qofka bani aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u yeelay cumri xadidan. maalin buu cumrigiisu bilaabmaa, ilaahay uu qadaray, maalinna cumrigiisu uu dhammaada uu gebagaboobaa. maalinta uu dhasho iyo maalinta uu dhintay nafta laga qabto inta u dhaxaysa ayaa qof walba cumrigiisa ah. cumriga bani aadamku isagoo marka horeba yar, ummadda nebi maxamedna ummadaha kale way ka cumri yar tahay, siduu sheegay nebigeenii moxamed calayhi salaatu wasalaam: acmaaru ummatii maa bayna 60 ila 70 wa qaliilu man yajuusu dalik. cumriga ummadaydu waa 60 ilaa 70, sida ay u badan yihiin arrinkoodu uu qaalibka ku yihi. waxa yar dadka dhaafa 70 jir. waxaanaynu ogsoonnahay maanta markaynu xaalkeenna eegno xataa 60 jirku inuu inagu yar yahay oo dadkeennu ay u badan yihiin dhalinyaro. qofka bani aadamka cumrigaa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey wuxuu maraa maraaxil kala dambaysa. maraaxishaasina way kala qiimo badan tahay. marxalada u qiimaha badan haddii qofka bani aadamka uu ka faa'iidaysto waa marxalatu shabaab, waa marxalada dhalinyaronimada, iyadoo qur-aanka iyo sunnuhuba si guud ay uga hadleen qofka bani aadamka ahi cumriga xadidane uu haysta inaanu iska dayicin, ee uu kaga faa'iidaysto wax anfaca adduunyada intuu joogo iyo wax sahay aakhiro u noqda maalinka ilaahay subxaana wa tacaala la horgeynayo. waxaa si gaara uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan uga hadluu ku soo celceliyey marxaladda dhalinyaronimada. marxaladda dhalinyaronimadu waxay leedahay sifaad iyo khasaa'is, tilmaamo iyo waxyaabo ay la gaar tahay. marxaladda qofka bani aadamka inta badan uu ugu caafimaadka badan yahay. waa marxaladda qofka bani aadamkaahi uu ugu firfircoon yahay oo dhalinyartu ma daalaan. tamar fara badan buu ilaahay subxaana wa tacaala qofka marxaladdaasi uu geliyey. waa marxaladda qofku ugu hamiye higsi badan yahay. waa marxaladda qofka bani aadamkaahi uu ugu sabir iyo dulqaad badan yahay, oo waxyaabo fara badan buu xamili karaa oo dadka waaweyn ama marxaladda dhalinyaronimo weli aan soo gaadhin ee ku jira marxalatu siba, marxaladda caruurnimada iyo caydnimada aanay xamili karin. waa marxaladda qofka dhalinyarta ama qofka ku jira uu ugu adduunyo jecel yahay oo muuqashada ee adduunyadu u muuqato
iyo indha ku haynteedu ayaa ka badan oo ka xoog badan muuqashada aakhira ay u muuqato. waxaa ku badan waxaa loo yaqaano taswiifka, wixii anfici lahaa had iyo jeeraale inuu dib u dhigo, idhaahdo weli wakhti baan haystaa oo dhalinyar baan ahay, jeer dambaan tukan doonaa, aan soomi doonaa, qur-aan aan akhrisan doonaa, cibaadaan u jeesan doonaa, laakiin hadda dhallinyaronimadayda waan ku baashaalaya. wakhtiga uu leeyahay waan ka faa'iidaysan doonaana waa wakhti aanu ogeyn inuu gaadhi doono. dhalinyarta ilaahay damaanad ma siin, nuxurkeedu uu yahay qof dhalinyaro inaanu dhiman ahayn, bal taasi waaqaca ayay khilaafsan tahay. oo in fara badan oo dhalinyaronimada aan dhaafin ee ku dhimata ayaa aada u tiro badan. qofka dhalinyarta ah inuu wax qaato, waxa loo sheegayo u dhug lahaado, in xaaladaha kala duwana soo maraya uu ku cibro qaataa way ka yar tahay inta laga helo dadka waaweyn ee marxalada dhalinyaronimo dhaafay. khibrad fara badan baa adduun iyo aakhiraba ugu dhiman qofka dhalinyarta ah. taasi waa ta keentay in nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo si guud ummadda ula taliyey, dadka dhalinyartaa inuu si gaara ula taliyo oo ula hadlo oo ugu celceliyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam. ibnu cabbaas wuxuu ka wariyey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu nin u waaninayay uu ku yidhi ikhtanim khamsan qabla khamsin, 5 ka faa'iidayso, waa 5 fursadood oo ku soo maraya, 5ta ka dambeeya oo fursaddaa ku seejinaya intaanay ku soo gaadhin. shabaabaka qabla haramik, fursadda koowaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa uu sheegay uhi ka faa'iidayso waa fursadda dhalinyaronimada inta aanad gaboobin. waxa u muhiimsane lagaga faa'iidaysanayaana waa atasawudu lilaakhira waalxirsu cala altaaca wamaa yuqaribu ila allah wayakunu zaadan ilayh. waa inuu addoonku qofka dhalinyartahay uu ku dadaalo cibaadada, uu hoggaansanka ilaahay subxaana wa tacaala, u sahay qaadashada aakhiro iyo waxa maalinta ilaahay la horgeeyo wuxuu taraaya. wax fara badan baa intaad dhalinyarta tahay kuu suurtagala weeyaan macnuhu, oo hadhow toole gabowgu uu kaa hor istaagi doonaa. haddii ay geeriyi ku dayso aanay dhallinyaronimadaba kuugu iman, kolay dhallinyaronimada gabow baa ka daba iman doona. wasixataka qabla suqmika buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam, caafimaad qabka ka faa'iidayso inta aanu xanuun ku haleelin. wax badan oo caafimaadka kugu suurtagala ayaa cudur markuu yimaado suurtagal aan ku noqon ahayn. waa fursad qaaliya caafimaadku. wa ghinaaka qabla faqrik, qaninimadaada ka faa'iidayso inta aanu faqri ku haleelin. faqrigu dad buu xataa diinta ka saaraa, qaar buu iimaankooda daciifiyaa, cibaadaadka iyo taacada uu ka jeediyaa, oo faqriga ayaa fitneeya. xoolaad haysataa waa nicmo ilaahay, uga faa'iidaysa inaad ilaahay subxaana wa tacaala ugu. wa firaaqaka qabla shughlik, jaaniska iyo firaaqadada haysta ka faa'iidayso, wax ku mashquuliya intaanu ku iman. qofka bani aadamka waxaa mashquuliyaana waa fara badan yihin. mas-uuliyaadka ayaa ka mid ah, mid guuda ummadda u qabto iyo mid isaga u gaaraba. wa xayaataka qabla mowtik, intaad nooshahay waa fursad noloshu, sahay qaadashaa kuu suurtagala, towbadkeen baa kuu suurtagala oo kuu furan. noloshaada ka sahay qaado, ka faa'iidayso inta aanay geeridu ku iman. geeridu fursado badan bay goynaysaa. alimaam alxaakim baa xadiidkaa wariyay, waana xadiid saxiix. haddaad u fiirsato xadiidkan, 5 arrimood ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay, 5tuba dhalinyarta way khuseeyaan. dhallinyaronimadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, iyagaabay taasi u gaar tahay. caafimaadkii buu sheego waa innaga tilmaannay. dhalinyartu dadka waayeelka ah waa ka caafimaad badan yihiin sida khaalibka ah. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay firaaqada. qofka dhalinyartaahi
wakhtiga iyo haleelka uu haystaa waa ka badan yahay haleelka dadka waaweyn ay haystaan, waayo mas-uuliyaadku way sii kordhayaan mar kastoo qofku uu weynaado. nolosha qofka dhalinyartahay dadka kale nolosha way la wadaagaan, laakiin saynu sheegnay marxaladda nolosha ay ku jiraan sifaad iyo khasaa'is bay leedahay nolosha kuwa kale ay kaga sarrayso oo ay kaga duwan tahay. cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu isna wuxuu yidhi qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa tazuulu qadama bni aadama yowma alqiyaamati min cindi rabbih. qof kasta oo bani aadamah gomadihiisu kama suulayaan ilaahay hortii inay taagnaadaan. wa yowma alqiyaama qof walba ilaahay baa la horgeyn doonaa subxaana wa tacaala, camalkiisii baanu ilaahay weydiinaya iyadoo cudud kaloo turjumaysa aanay jirin. waa mowqif cadiim oo aad iyo aad u weyn. xataa yas'ala can khamsin, halkaasi ayuu ilaahay hor taagnaanaya qofka bani aadamka yowma alqiyaama, oo xaaladiisu siday u adag tahay qur'aanka iyo xadiiskaba in badan laynoogu sheegay. ilaa 5 arrimood la weydiiyo. can cumrihi fiima afnaah, cumrigiisaa la weydiinayaa, muxuu cumrigiisii ku dhameeyey, cumrigani wuu dhammaanayaa, waa shaki la-aantaas. wa kullu nafsin daa'iqatu lmowt, ma khayr iyo wax anfacuu ku dhameeyey mise dayac iyo wax dhib u leh. laa shaka cumrigaa qofka la weydiinayo inay ka mid tahay bara ay ugu qiimo badan tahay marxaladda dhalinyaronimadu. wa can shabaabihi fiima ablaah, cumriga waa su-aal guud oo dadkao dhan khusaysa dhalinyaro iyo waayeelba. marxaladdii dhalinyaronimona su-aal gaara laga weydiinaya. dhalinyaronimadiisii muxuu ku baaliyey? dhalinyaronimadu way baaliyoobaysaa. qof weligii dhalinyar ahaanayaa ma jiro haddaanay geeriyi ka soo hormarin. gabow baa dhalinyaronimada ku xiga. wa maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu, xoolihiisaa la weydiinaya. xagguu marka hore ka tabcaday, ma xalaal mise xaaraan? xagguuse ku bixiyey, ma meel ilaahay raalli ku yahay mise meel ilaahay aanu oggolayn? wamaada camila fiima calim, cilmigiisii muxuu kaga camal falay? 5 ilaa la weydiiye halkaasuu ilaahay subxana wa tacaala hor taagnaanaya. tirmidi baa xadiidkaasi wariyey. xadiidan waxay xambaarsan tahay cibaad allah talooyin waaweyn oo aada u qiimo badan oo dadka dhalinyarta ah ee baashaalka adduunye iyo mashquulkeeda ku jira in badan oo ka midana waajibaadkii iyo xuquuqdii iyo cibaadaadkii arrimahaasi ay seejiyeen baraarujin u ah, oo khafladda ka toosinaysa iyo ilowga qaar fara badani ay ilaabeen is-hortaagga ilaahay iyo daarul aakhira iyo geeridu iyagoo dhalinyara inay u iman karto, oo ay haleeli karto, ay dhufan karto, ay qaadi karto, iyo marxaladda ay ku jiraan qiimaha ay leedahay ilowga ay ilaabeen ee sidii ay ahayd aanay uga midho dhashan oo aanay uga faa'iidaysan. bal laga yaabo in badanoo ka midii marxaladdii noloshooda ugu qiimaha badnayd inay ku khasaariyaan waxaan sharaf iyo qiimo, manfaco iyo waxtar midnaba aan lahayn, bal dhibaato u leh, sida macaasida noocyeeda kala duwan oo ay ka mid tahay maanta kuwa aadka u badan, daroogada noocyeeda kala duwan oo qaadku uu ka mid yahay, xashiishadu ay ka mid tahay, khamriga iyo waxyaaba la halmaala, macaasida inta faraha badan moobilada iyo aaladaha lagu wada xidhiidho ama wax laga daawada ay xambaarsan yihiin. fattaquu llaha ayuha ashabaab, dhalinyaro ilaahay ka baqda, rabbina subxaana wa tacaala wixii khalad iyo gaabina uga toobad keena. fursadda qaaligaana wax qiimale mooyaane wax kalaa ku dayicina. aqulu qawlii hada waastaqfiru llaha lii walakum. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، dadkii hore wanaagsanaa culimo iyo waayeel ba lahaa, kuwa iimaanle oo aakhiro xusuusan ahaa, dhalinyarta wakhtigooda joogtay waxay siin jireen talooyin qiimo badan iyagoo arrinta noocaasi ah ilaahay ugu dhowaanaya, isla markaana kaga dayanaya nabigeennii Muxamed
calayhi salaatu wasalaam ee dhalinyarta in badan la teliyey. alxasan albasriyu raximahu llah waa caalim ka mida culimadii taabiciinta, waa raggii saxaabada soo gaadhay. wuxuu yihi isagoo dhalinyarta la hadlaya, ya macshara ashabaab calaykum bilaakhira fatlubuuha. dhalinyaray waan idinla talinayaa, aakhiro ogaada, wanaagga aakhiro raadiya. fakaiira ra'aynaa man طalaba alaakhira faadrakaha maca addunya. khibradda iyo tajaaribta adduunye ee na soo martay waxyaabahaanu ka barannay waxaa ka mid ah, qofku hadduu aakhiro raadiyo iyada iyo adduunye labadaba wuu helaya. ilaahay baa subxaana wa tacaala qofka aakhiro raadiya hamigiisa u weyn ka dhiga, adduunyadiisana barakaynaya. walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard. ilaahay baa subxana wa tacala kitaabkiisa saa ku yidhi, waman yattaqi allah yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib. wamaa ra'aynaa axada طalaba addunya faadraka alaakhirata maca addunya. weligee maanaan arag buu ihi qof hamigiisu adduunye unu noqday oo adduunye uu raadinayo aakhiro ilowsan, oo adduunye aakhiro labadaba wada helay. albayhaqi baa fi kitaabi zuhdi ku wariyey. cabdullaahi ibnu cawn rag dhalinyaro hareere fadhiyey buu isna la telinaya u la hadlaayey. wuxuu yihi macshar ashabaab qad ra'ayna ashabaaba yamuutuun. dhalinyaronimadu yaana idin dagin, ha moodina idinku inaydaan dhiman ahayn oo geerida hayloobina. in badan baanu aragnay oo shaahid aanu ahayn dhalinyaro dhimatay. ibn abi dunya baa ku wariyey kitaabkiisa alcumru washayb la idhaahdo, cumriga iyo cirada. xasan albasriyu raximah llah mar kale wuxuu yihi isagoo la hadlaaya dad isugu jira odayaal iyo dhalinyarba, si gaarana dhalinyarta tala u siiyey, ya macshar ashabaab ina azarca qad tudrikuhu alcaaha. marka hore odayaashuu la hadlay, wuxuu yihi zaracu hadduu gaadho wakhtigii bisaylkiisa waxa lagala sugaa waa maxay? soo ila jaro maaha. marka dadka da'da noqdayow ogaada waxaad gaadheen wakhtiga dhiman lahaydeen, adduunyada ha isku ilaabina. haddana dhalinyartii buu la hadlo wuxuu yidhi, ya macshara ashabaab ina azarca qad tudrikuhu alcaahatu qabla an yablug. dhalinyaray ogaada, zaracu isagoon gaadhinba wakhtigii la goosanayay. waxaa dhici karta cudurro iyo aafaad ka soo horeeya inay ku dhacaan. macnaa qofku isagoon da iyo gabow wakhti markaa geeri uu isdhaahdo allayla way ku haysaa aan gaadhinba, waxaa dhici karta isagoo dhalinyara inay geeri ku dhacdo. maymuun ibnu mihraan wuxuu dhalinyarta ku odhan jiray, ya macshar ashabaab quwatakum wa nashaatakum ijcaluuha fi taacati illah. dhalinyaray ilaahay baa idin siiyey xoog iyo caafimaad, rabbi baa subxaana wa tacaala idin siiyey firfircooni iyo tamar iyo karti, ilaahay taacadiisa geliya. abu nucaym baa ku wariyey fi lxilya. waxaa laga yaabaa dadka adduunyadu quluubtooda ku weyn tahay inay yidhaahdaan dhalinyarta ma aakhiruun baa lagala hadlaya, adduunyada miyaan lagala hadlahayn? nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta u badan aakhiru kala hadlay, waayo hamiga adduunye marka hore iyagaaba xambaarsanba. adduunye in loo tilmaamo oo adduunye lagu dhiirigeliyo baahida ay u qabaan waxaa ka badan baahida ay u qabaan aakhiro in la xusuusiyo loo tilmaamo. waayo adduunyada marka hore ayaa quluubtooda ay ku weyn tahay, dhalinyaronimadaaba iska wadata. soo hore ba aynu sheegnay inuu qofku adduunyada u heelan yahay oo hami saraba uu hayo. sufyaan athawri raximah llahu tacaala, imaamkii xadiis yaqaanka ahaa, wuxuu dhalinyarta ku odhan jiray, idaa lam tusallu lyowm famata ay mataa tusalluun. maanta haddaydaan tukan idinkoo dhalinyara oo caafimaad qaba, xoog iyo tamar ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey, oo caqligii rabbi uu idin dhammaystiray, goormaad tukanaysaan? mataa tusalluun. haddeeraa waxaanu tukanaynaa markaanu weynaano, yaa kuu damaanad qaaday inaad weynaanayso? haddaad weynaato markaad weynaatana ma ahaanaysaa sidaad ahayd markaad dhalinyarta ahayd? xasan albasriyu raximah llah
tala aad u qiimo badan isagoo dhalinyarta siinaya wuxuu yidhi yaa macshara ashabaab iyaakum waataswiif dhalinyaray waxaan idinka digayaa camal wanaagsan oo aad qaban kartaan maanta inaad berri dib ugu dhigtaan sawfa afcal iska ilaaliya jeer dambaan samayn waktiga soo socdaan tukan aan soomi qur'aan aan akhrisan digriga aan farabadin waan toobad keeni doonaa haddase dhallinyaronimadaydan ka faa'iidaysanayaa oo raaxada adduunye ee xaaraanta ah iyo baashaalkeeda aan kaga faa'iidaysanayeen war haddaad naftiina badbaado la doonaysaan taa iska ilaaliya buu idhi ibni abidunya baa ku wariyay kitaabkiisa qasrulamal la yidhaahdo waxaan leeyahay dhalinyarteenna khayr fara badan baa ka muuqda walilaahi alxamd masaajidadeenna maanta haddaad eegto dadka ku tukanaya inta u badan 90% meelahaas haddaanay ka badnaynba masaajidada qaarkood waa dad dhalinyaro ah waa arrin qofka muslimka ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinulislaam jecel ummaddiisana wanaagga la jecel ka farxinaysa waxaynu leenahay waa arrin fiican ee waxaad ku dartaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana inaad barataan oo ilaahay diintiisa oo aad baran kartaan oo ceelashii looga aroorayay meel walba ay ka qodan yihiin ha ka haraadanaanina yaa shabaab dhalinyaroy ilaahay diintiisa inaad barataan waajib bay idinku tahay adduunyada barashada intaad ku dadaalaysaan in ka badan ku dadaala ilaahay diintiisa barashadeeda marxaladdaa qiimaha badanna ha dayicina inta aad yaryar tihiinna nafihiinna ku laylya oo ku tababara cibaadaadka naftu cibaado way la qabsanaysaa hadhow way u fududaanaysaa haddii kale waxaa kugu dhici kara su'ul khaatima intaad yar tahay haddaad cibaado nafta ku tababari weydo markaad weynaatana layli inay yeeli weydo dabeetana cibaado la'aan ilaahay aad ku hor tagto oo khaatimadu sidaa ay kaaga xumaato ilaahay baynu ka magan gelaynaa khaatimo xumo rabbi baanaynu weydiisanaynaa xusnu khaatima اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلحنا وأصلح أمتنا وشبابنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح أمتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد